wasiirka ninka sagaashii kow geel ku qori jiro waaye kaas war male wax kala sheeg weydiiye maxaad uga jeedaa arrintaas asaga sagaashii kow geel ku qori jiray balaayo baa saab abiyo way intoo ku qali jiray ma holudaag ha ana marqaati hay geelu yani keeni jiro sagaashii kow ku soo qoraayo leeyahay waa la dagaalaa badbaado qaran adigu ma maqnayd waa joogay shirku waa dhacaayay hadda maalintii labaad uu socdaa wixii maalintii hore waa ogeedeen waa duubateen inta hadashay aniga waa ma hadlin sax waaye liana maalintii diyaaradda markaan kasoo degaa iridii istaagteen marka shalay waxaan sheegay meeyninba wixii hore u idinkugu sheegay markay wax looga keeni waayey kismaayo wax looga keeni meeyay dawladda arrintaa ma jirtaan meel maa waxaa wax keeno waa aragti marka aragti ama kismaayo joogto ama garow joogto ama xabar joogto aragtideeday qofka leedahay aragtidaas dawladda federaalka hadii wax looga bedeli waayo ka waran waxa laga bedelayo maxay kula yihiin u malaysaa ilaa waxay ku heshiilayeen sidii ay hoggaanka golaha mustaqbalka u dooran lahaayeen ku heshiin karaan gurmutiyada lagu badbaadin dadka Soomaaliyeed inta ka soo xigata anima ogi waxaas golaha mustaqbalka hoggaankeeda waa dhisayaa ilaa hadda sidaan xad ku hayno golaha mustaqbalka hoggaanka u baahan muxuu yahay in hoggaan ay yeeshaan hoggaanka madasha mutabixish hore u jiro waa bijiraay golaha mustaqbalka labada nin oo ku soo birto madaxweynayaal xilka rabaan maxay war murtiyadka golaha ka soo baxay madaxweynaha ma dhageysan doona waa ku qasbaya taas ma tuugmay axmed macalin go'aan oo wuxuu sheegay in halkan lagu hubeynayo si caasimadiina aado wasiirka ninka sagaashii kow geel ku qori jiro waaye kaas war male wax kala sheeg weydiiye maxaad uga jeedaa arrintaas asaga sagaashii kow geel ku qori jiray balaayo baa saab abiyo way intoo ku qali jiray ma holudaag ha ana marqaati hay geelu yani keeni jiro sagaashii kow ku soo qoraayo leeyahay waa la dagaalaa badbaado qaran adigu ma maqnayd doorashada deegaanka xasan Axmed loo joojimo wada qabanaya maxay